السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أنكم شيء هوري وحن كل شيء كنا هست دواكر استابو سمي. أوكي وقت ما هست لك وببسينا. هست دواكر مرك كودي بهوري صرت عسمينا أي وحقدو باستوديو تك كوياله لكن سه ويران سدح استوديو آخر تيجي سيدا أكو هلي لها عدك حتى يوتيوب كله جرته أوريجينال كه. maalintii koowaad aniga iyo Montana ahaan studio wax lagu bilaabay kashkid wuxuu ku yaala Thika dan iyo mashaqay moota qaadanay aniga Montana meeshii saas ku tagnay marka meeshii tagayna hees ima diyaarsanay iyo qornaan studio tagnay video sameeyay bidkii oo sameeyay wax isku dayay inaan hees ku duubo bidkii hees waa ku duubay isla waqtigaasna waxay ahayd waqtiga ii diyaarsanay showga Soomaaliya oo Soomaalina aad laga rabay so studio tagnay hees yaa duubnay erayga waa kire ma ahaan eray jira markaas laakiin soo waxa asaga baashaalay oo muusiga soo kor ciyaarayna ahayd oo nala macaanaday saas ku dhaafnay kadibna waxa ii soo baxday inaan show u aado Soomaaliya showga Soomaaliya marka u aaday heesta waxa wata demo laakiin ya produce gareynay demogaas kashkida produce gareynay Soomaaliya aaday showgigaas soo qabsaday showgi marka soo qabsaday aan ku soo laabtay Nairobi kashkida waxa dhaniyo heestii ayada ahayd waa ka helay bal tala keen inaan hada heestii sameeyaa qabaahay kashkidna wuxuu ugu dhahay inuu runta ku sheego studio meesha isku yaala waa la xiray feelyaashii dhanna way baabiceen kombiyuutaradii waa la gaday soo heestii kuma heena laakiin waxa ku badbaaday demo wuxuu igu jiray telefoonkeyga kashkid wuxuu igu bilaamiyay studio kale oo la dhaho Combat Records oo Nairobi ku dhex yaala townka agtiisa studio Combat Records kii aaday meesha tagnay beat kale oo garaacay live ay ku jirta YouTube aniga iyo Doni Bias soconay iyo managerkayga baato beat cusub oo garaacay meesha cod ku duubay waa dhageysta ila macana weys kadib waxa ku fikiray inaan kashkid ka bedelo oo aan raadsho producer kale waa markii ugu horeysay isbaranayno ama is arkayno magaciisa waxa la lahaa Paulo waa maqashin heesta original ka sameeyay Paulo studio waxa uu yaalay tagay meesha magaciisa si fiican waxa xasuusto laakiin sawirkan inta idin soo saaray isku dayay studio oo adiga Nairobi ku yaala laakiin dhanka xigta garoonkii isheeg dadka lagu xiri jiray waqtiga ayanta dadka la dadgulinay Soomaalida ilaa garoonka lagu xiri jiray kasraani active studio ku yaala uu tagay Paulo meesha ku sameynay heesta waa kire waxaana ila socday Doni B oo codad badan oo hoos uga dardaraa jirta anigi Paulo iyo Doni B heesti meesha ku wada hagaajinay laakiin heesta kaliya qaadayay dhageysiga soo qaatay guriga imaaday guri marka imaado waxa xasuustaa waxa ka bedelay qaybta kalimar rabay kolkoli baby kuwa kale kulli meeri original marka Dubai ma aysan ku jirin guriga imaaday waxaan go'aansaday inaan meel qayb ka mid ah heesta aan tirtiro kadibna wax kale u qoro aan kaas ku daro adiga wax kale u qoray studio marka la ku laabtay waa duubay duubitaankii heesta saas ay ugu dhamaatay videoga la iska raba marka laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin videoga ma aanan u struggle galeenin ama ma aanan u xasal gareenin sidii heestii moola camal oo qarash la'aantii ay jirtay waxaynu ila soconaysaa dhankaas hadda aad rabaa doonta xagga u leexina marka adiga studio tagna heesta soo dhameystay videoga waqtigeeda la gaaray location soo raadsanay waliba locationka aan ku duubay location aad qaali u ahay sababtoo waa meel loogu talagalay dadka fanaaniinta waaweynka kaliya inay heesaha ku duubaan meesha kaliya dhulka kaliya wax laga keenaa 20 location waa $200 dhulka kaliya laga keenaa dharkeena adiga ka tiimadii wixii soo qaadanay managerka ay dhahaa Trisha loo baahan yahay Trisha waxaa raadinay gabar oo adiga Kenya wax yar ka bedelay marka waxa helnay gabar Tanzania ina tahay Malaysia soo asaga ii sheegay aniga ma hubo aan soo helnay adiga gabadhii video ay nala duubtay waxay la socday liicaato Sakaaj aniga kabtanka ciyaartoy Kenya marka la jiray walaalkayga asagana sidoo kale way la socday Tiger aniga u bixiyay ninkaas way la socday adiga videoga meesha ku soo duubnay laakiin heesta waxa rabay business inaan u sameeyo marketing fiican u sameeyo marka naftu waxay u kaliftay heestii inaan suuq geliyo Spotify meel kasta qofkii Soomaaliga u horeysay oo meelahaas ku gadana aan noqdo adiga waji xun ma ana kala kulmay waji fiican aan kala kulmay internet marka geliyay chatka Kenya ii soo gashay haddana Africa chatkeeda ii soo gashay runta daa idin sheegana alxamdulillah rabbil caalamiin lacagta iga gashay 10 jibarkeed waa ka helay oo lacagihii iga soo galay ilaa hadda tambaqaan aan ku raaxaysanaa jira weli lacag si cunaya weli maalin kasta lacag cusub ay soo siisaa waa kire waa jeclaa sheekadana idin barbar dhigo idin kala dhigo idin toosiyo laakiin waxaan go'aansaday meesha inaan maanta kaga sheekeeyo heesta waa kire waa maasantihiin clipkan editing waxba kuma sameeyay just sidoo yahay aqad ku soo gelina waa kireena saas aan ku sameeyay thank you
Peace, love.